ninkii mursal habeen dhowto waxa lagu garaacay hudheelka la yiraahdo Mansoor caawna arrin kale idinka haya waxa ogeydeen isagana nin la dhahay nimcaan hilaac isagana ma garanaysa maalin dhowto in lagu qasbeeyay gabadh runtii burca meesha ah oo sawiradiisa la soo qaatay oo markii dambe uu yiri war anigu gabadh maan guursantaa uu hayay waxa soo dhan waxa weeye waa dhibaato lagu hayo beesha Samaroon Siciid madaxda boqortooyada ah weligeedba ummadda u soo tarin jirtay anigu waxaan la yaabanahay sababta ay Samaroon inamadoodan ugu magaranaysa ugu hiilin la ayina u aaminsan yihiin waa maxay war raggan waxa weeye caadi baa loo fuulay caadi mursal boqolkiiba waa laga gardaray habeen hore rag baa ku dilay Mansoor caawna arrin weyn baa dhacday Nabil Ali soo dhawow waxa weeye wallahi arrintaas arrin la aqbalaya maaha hargeysa adeer magaranaysa ay cid quli ma laha waa meel shacabka Soomaaliland oo dhan ay ku nool yihiin reer quli ma laha mana aqbalayno nin boqortooyada Samaroon Siciida adla empire 1854 boqortooyaha inay wax xun oo magaranaysa futaxuna oo doqona oo dulliya reer noocaasi inay u hanjabaan oo ay ku garaacaan ninkaas weligii Ilaahay wax ay sugaynay weeyaan waxaas war ilaa Muuse weyn ayaa la hinaansan gabadhan la furay gabadhu waa la furi jiray gabadh la furay fadhuuma yaal ninkii furayna ficilkiisa ku noqon gabadh la furay mushkilada ugu weyn waxa weeye gabadh la furay baa shakaas ku taagantay ninka lagu dilay maxaad u furtaa lagu leeyahay wax diinta ka soo horjeeda oo dhaqanka ka soo horjeeda oo magaranaysa Ilaahay ogoli oo Ilaahay baad ninka afar u banay waa maxay arinta in xidigaha geesku intay soo abaabulaan ay ninka Mansoor lagu garaacay ninka waa la dilay ninkaas waa dilay ninka mursal waa dilan yahay waa la dilay suxun baa loo garaacay caawna arrin weyn baan ka haynaa soo dhawaada Soomaaliya dhan isgaarsiiya waxa weeye magaalada Hargeysa waxaad moodaa afar inanoo yar la yiraahdo xidigaha geeska oo reernimo iyo qabyaaladii qulun isku raacay ayaa magaranaysa dadkii raba inay magaca Hargeysa lagu dilo oo la yiraahdo magaca Hargeysa lagu dilay cidda dishay waa la garanaya war gabadhan adeer hadii la soo furay ma waxaad aragtay gabadh fool xun oo la isku qasbay waa qabyaalad weyn waa qabyaalad nooceedii waxa weeye gabadhan hadii la furay fadhuuma yaalo ma nin lagu garaaco habeen walba loo cagjuleeyaa miidiyaha meegaas kale war miidiyaha kan dhiijo subar leeyahay waxba caaw waxa soo qori dhiijo subar ninka leeyahay waa munaafiqa ugu weyn waxaan wada weyn caaw wuxuu soo qoriyay anigu waxaan la jira Hodan Cabdiraxmaan baan la jira waa benti Snapchat-ka laga daawanayay cidu la jira waa la garanaya xidigaha geeska ninka la yiraahdo Laab Salaax ayaa waxaan wada dhalinyaradan reer Boorame waxa weeye dulmi weyn baa lagu sameeyay nimcaan baa la eriyaday mursal Muuse ayaa sida loo galay aan arkayna war waxa weeye reer Geysow dhaqan kan xun xagee ka keenteen war dhaqan kan xun xagee ka keenteen adeer noo sheega anaga Hargeysa ma waxa iska leh magaranaysa hal reer baa ayaa iska leh reerkan meel soo dejiyaga waxa weeye waxaan meesha ka socda waa qalad weyn boqolkiiba 9 waa qalad جيسي كسر دوادة برنامج كسر دوادة والله بالله عاو إلى لوكال بحين وأنا قولي لا مري إلى نكا مرسل موصنا عن مقران صاي كل باب معصور لوديني وكل باب ميل لوكر باشين نكا عوال دلي حالته والله قراعي معصور بحيس على قراعي ويسكو قولي غير كاس وحلوها يستا محل هبلايو فرتي هبلايو محل فرتي هبلايو ورا ناقيش الله ما بهنا ناقيش الله ما بهنا در وحوي وكد wax dhintay oo baabay baa waxa ragga lagu qasbaya moogti ayar anagu waxba qarmayno ninkani uu dool darsaday Ilaahay baa u baneeyay inuu guursado maxaa loogu diidaya wuxuu ku leeyahay hees buu soo qaaday wuxuu ku sheegay gabadhan shisheeye waradeer heestu waa waxa weeye with a kind of comedian way waxa weeye wax magaranayay qofka ibn aadanki muurkiisa isaga abaan baa waxa sameeyay ninka fanaankii xataa mararka qaar ma yaqaano waxaan loo dhiyo ma yaqaano والحسن آدم سمتر باركتين إسقو سيلا قاضية سيلو قيال بدن سو قاضية باركتين ولا ويدي حسن آدم سيلا متقانا بالقولي مكة سيبود حسن آدم سيلا ما يقان وأنا هياس ديجان كا وخطر سن حسن قري سمي ويا سيلو قيال بدن وهياس حاجة ديجان كقاضي وحسمين اللي حسن قري أبون وين مروقان أنا كا لكن إنما ضير قبيلات الله ما يرسنا لقول شيء حدقها جسكه xidigaha qoyska la dhahdaa annaga dhowr baa naga jira dhowrkaana waan ka saarana dhowrka naga jira waxa weeye caaw qaar baan arkay lahaa BK baa ku jira war BK waxaan waxa ka mooga munaafiqada rag baa wadaada
waxa weeye reer awdalow sabroon siciiday boqortooyay waxa wada waa la yaqaana cidda waxan wada waa la yaqaana inankiina cidda dishina waa la yaqaana maxaa naagta lagu qasbaya warada rab ma taqaana maxaa naagta lagu qasbaya taas la isweydiinay waa soo qabanaya maxaa gabadha lagu qasbaya gabadh buu furay waxa weeye sheeko waxaan maqli jirnay aas qaran bayn maqli jirnay imika sheekada socota waxa weeye hinaasa qaran madaxtooyada laga ooya hodan cabdiraxmaan baa lacaaya leeyahay saddex nin baa soo furay hebel baa soo furay ilmahan ugu dambeysay haysato lama yaqaano wax keenay gabadhaasaa lagu tuntay miidiyihii wax haysta reerkaas haysta samaroon siciid waan aad iyo aad baan u dhalinaya aad iyo aad I highly condemn hala shargaray barnaamijka wallahi waan aad baan u cambaaraynaya raggii miidiyaa ku jiray inay hadlaan bay maxaa ninkii lagu dilay habeen walba waa ninkan caawa afka dhiig baa ka socda baan ku samaroonay afka dhiig baa ka socda hargeysa meeshan ciidan degani waxaan ma ogolin anagu ma ogolin nin fanaan awdala in la dilo codkiisa lagu haystaa nimcan hilaac baan ogeyn kolba gabadh lagu qasbayo leey burcu halkan gabadh bay ka baxday halkan la sawiriyay waxana aynkan waxaasa meesha ka socda waaba la isku qasbaya ninkii dhamaayo wuxuu yiri war anigu gabadh garasa maan guursan baa laga yeersi waa lagu qasbay amiisha waxay tiri mawlid BK iskaga baxay waa ruus iskaga baxay BK meesha kuma jiri karo waxaan sheegaya halkan aan u marinaya ninka beerof la yiraahdo isku xaafadana dhalinyarada soo dhan ninka Cabdiraxmaan Oday la yiraahdo Jiilaani war waxa meeshan ku jira fadaraha iskaga bax meeshan dhalinyarada boorama ka timid lagu cusreeniyo maxay dhigay ee lagu leeyahay habeen walba hablay u furay oo maadu ku guursan la markaa waay maadu ku guursan la ninkan gabadh buu guursaday waa dhaqan ilaahay baa u baneeyay fanku xumaadaba lakum min an-nisaa masna wa sulasa wa ruba' mid iyo laba iyo saddex iyo afar buu guursanay aayadaas sheegaysa aayadii quraanka ay baa ka hortimaadeen ayaa ka hortimaadeen maalin suuratu nuur baa ka hortimaadeen oo waxa taageerteen waa madaxweynihii koobaad ee taageeray khariisnimo taariikhda meel bay ugu qorantay tugna ma xado عاون وحلا تمادين إن آيات بينسان فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة والربع محاكو سحقة فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة هدي أفرتان